dhismaha dawladnimada iyo salaadinta mustabeedka hordhac dhismaha dawladnimada iyo nabadda Soomaaliland waxay ku qontahay heshiis bulsho oo ay gaadheen beelaha wada degan Soomaaliland heshiiska waxa laf dhabar u ah wada tashi isku tanaasul isqancin nabadgelyo iyo ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee bulshada iyadoo oo laga duulayo xeerarka caalamiga ah iyo xuquuqul insaanka iyo maqaasidda shariicada islaamka dastuurka Soomaaliland waxa uu aragtiisa ku tilmaamay in dadweynaha Soomaaliland uu ay arag u yahay ciribxumada iyo dhibaatada xukun ku dhisan talamarorsiga iyo kalitalisnimada kana feejigan yahay dib ugu noqoshada xukunka noocaas waxa cad in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi oo si cad ugu xadgudbay heshiiskii bulsho ee ka dhaxay beelaha wada degan Soomaaliland isla markaana ka tallaabsaday dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waxa uu ka dhigan yahay xukunka dalka mid kalitalisnimo caburin iyo xadgudub xuquuqda insaanka ku shaqeeya waxa uu xidhay suxufiyiin madax bannaan iyo dadka aragtidooda ku cabira baraha bulshada bishii August 12keedii 2022 waxa xukuumadda Muuse Biixi ay dishay dad shacab ah oo si nabad ah ku cabiraya aragtidooda siyaasadeed iyadoo uu adeegsaday xoog xad dhaaf ah iyo xabad nool oo keentay dhaawac iyo dhimasho waxay xidhay dad kor u dhaafaya boqolaal June sanadkii 2022 waxay xukuumaddu adeegsatay awood xad dhaaf ah hogaamiyaasha mucaaradka iyo mudanayaal la soo doortay oo leh xasaanad waxay sifo sharci darro u xidhay madax dhaqameed u soo jeediyay madaxweynaha oo ugu baaqay inuu dastuurka ku soo noqdo arrinta laascaanood waxa ugu dambeeyay ku tamashada xuquuqda insaanka caburinta raay dhiibashada iyo dad shacab ah oo xabad nool dhacay dhacdadii ka dhacday magaalada laascaanood taariikhdu markay ahayd 27 December 2022 waxa ciidanku xabad nool la dhaceen dad shacab ah oo ka gadooday dilalka qorshaysan ee loo adeegsanayay haldoorka iyo birmigeedyada gobolka Sool muddadii 10 sanadood ka badan caburintaas waxay la mid tahay habdhaqan qalafsan ee uu caadeystay xukunka Muuse Biixi xukuumadda Muuse Biixi waxa ay diideen fuliso hadalladii heshiiskii la galay Professor Ali Khaliif Galayd oo muddo badan daba socday in Soomaaliland heshiiska hirgeliso waxa muuqata in sida ay xukuumaddu uga falcelisay mudaharaadada dadka shacabka ahaa ee December 2022 ay ka sameeyeen laascaanood oo ahaa mid qaldan iyadoo habka ay u martay uu yahay mid ka baxsan qaababkii Soomaaliland lagu yaqaanay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waxa cad in dibtaas lagu maareyn karayay si ka duwan xabad iyo xoog ciidan beesha Garxaajis oo maalmihii u dambeeyay lahayd wada tashi iyo shirar ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ay beeshu leedahay waxay soo saareen go'aanadan hoos ku qor go'aanka beesha Garxaajis markii aragtay duruufta qalafsan ee dalka ku jiro iyo taariikhda Soomaaliland markii ay daristay dastuurka dalka iyo heshiisyadii beelaha Soomaaliland 1993 markii aragtay dhacdooyinkii faraha badan ee iska soo daba dhacay 5 sanadood ee ugu dambeeyay ee ahaa ku xadgudubka dastuurka iyo heshiisyada bulshada iyadoo dilalkii dhaawacii iyo xarigii sharci darrada ahaa ee xukuumaddu geysatay June August sanadii 2022 kana dhacay magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Eergaaw iyadoo in beesha Garxaajis dhulbaahanta ka dhaxeeyo deegaan aad u ballaaran iyo walaaltinimo isla markaana beesha Garxaajis ay doonayso in dhammaan beelaha kula noolaato nabad marka ay ku qanacday gafafka ku talagalka ah ee ay geysatay xukuumaddu magaalada laascaanood waxay soo saartay go'aanka waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn 2 waxa la mas'uuliyadda waxa ka dhaca laascaanood xukuumadda Muuse Biixi Cabdi 3 beesha Garxaajis waxay go'aansatay in aan ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Biixi inuu diray laascaanood sababtoo ah ma qaadi karno kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho annagoo ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada laascaanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo 4 waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay laascaanood ehelkooda iyo qaraabadooda 5 go'aankan waa mowqifka rasmiga ah ee beesha Garxaajis mana jirto cid kale oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qayb gali karta shir magac iyo afka reerkaba tala soo jeedin beeshu waxay soo jeedinaysaa oo ay xal u aragtaa 1
in si run ah loo joojiyo xabadda. 2 in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabaddu iska gaari karin si xabad joojintu u hirgasho. 3 in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara. 4 xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabaddu iska soo gaari karin, isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabad joojintu u hirgasho. 5 garaadada, guddida, culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahante waxaan ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan fulinta xabad joojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidanka. 6 in aan wax caqabad ah lagu samayn kaalmada bini'aadamnimo ee la gaadhsiinayo shacabka ku barakacay dagaalka sokeeye iyo dadka dhaawacu soo gaadhay. Wabilaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maxamed ilaahay baa mahadda koobaad leh subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo aan ku mahad aan u mahad celinayaa waayeelka iyo waxgaradka reerka ee halkan maanta hawshan isugu yimi inay fuliyaan qoraalka halkaa laga akhriyayey iyadoo dee shirku intan ka ballaadhnaa ama uu ka baaxad weynaa intanu ay tahay guddigii iyo mustambeedkii salaadiinta iyo odayaal iyo adigu maaragtay waxgarad kooban. mahaddaa iyo tilmaantaa kadib halkaa qoraalkaa laga akhriyey waa qoraalka rasmiga ah ee reerka, waana sidaas aanu aniguna aan ku guddoominayaa haddaan ahay suldaankii guud. sidaas aanaanu insha allahu tacaala ku rajaynaynaa inay uu ku midho dhalo oo uu ku meel maro. waxaanan u sheegayaa dabadii iyo gudaba reerka maanta garxajis ee halkan salaadiintoodii iyo guddidii guud fadhido ee go-aankan hogaaminaysa, dabadii iyo gudaba meel kastay joogaan inay la socdaan go-aankaa, qaataan, weelaystaan insha allahu tacaala dee ku dhaqankiisa iyo ka wada socodkiisana aan ka wada soconno. aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idiin salaamayaa bahdiina saxaafaddana